maxaa loo sababeynayaa in qaaradda Afrika ay kaalinta koowaad kaga jirto dhanka duurjoogta iyo xayawaanka midaasoo baryahan dambe indhaha caalamka oo dhan soo jiidatay isla mar ahaantaasina ay ku badan tahay duurjoogtu dalxiiskuna aanu ahayn mid tirayar ee uu yahay mid kor u kacaya iyadoo dadku ay xiiseynayaan inay indhaha la helaan xayawaanadan dabiiciga isla mar ahaantaasina qaaradda Afrika waxaa loo aaneynaya inay ku nool yihiin xayawaanada ugu waaweyn kuwaas ay ka mid yihiin libaaxa maroodiga iyo logosiyeedka isla mar ahaantaasina caalamka oo dhan ay baryahan dambe hadalhayntiisu badan tahay haddaba waa midkee ama waa xayawaanka qaaradda Afrika aanay la wadaagin qaaradaha kale midkaasoo looga aqoonsan yahay qaaradda Afrika inuu ka yahay muwaadin dhaba midkaas oo wixii caalamka kale laga helana loo aqoonsan yahay inta feertiisa halkani laga xaday ama si uu kala looga qaaday xayawaanka muwaadinka ka qoran qaaradda Afrika midkaas oo halkan laga helo waa midka loo yaqaan harimacadka ama waa xayawaanka ugu dheereeya xayawaanada midkaas oo inta badan halkan qaaradda Afrika loo aaneeyo inuu ka soo jeedo asal ahaan isla mar ahaantaasina caalamku ay isku raaceen in wixii caalamka intiisa kale laga helo laga xaday ama si kala looga qaatay qaaradda Afrika midkaas oo ku nool badanka wadamada qaaradda Afrika intaasi kuma koobna oo kaliya waxaa jira xayawaano uu ka mid yahay shabeelka midkaas oo qaaradda Afrika laga helo walow noocyo kale laga helo qaaradda Aasiya haddana qaaradda Afrika waxay leedahay shabeel u gaar ah qaaradda Afrika sidoo kale baryahan dambe waxay ka sameynaysaa horumar ballaaran dhanka tiknoolajiyadda midaas oo xayawaanada lagu sameynayo dabagal lana ogaanayo macluumaad badan oo ku saabsan waxaana shirkado badan oo xayawaanada ka shaqeeya ay saldhig ka dhigteen dalka Kenya halkaas way ka soo duulaan iyagoo gaaraya ilaa Tanzania Zimbabwe halkaas oo xayawaano badan ay ku nool yihiin haddaba su'aashu waxay noqonaysaa inagu Soomaali ahaan heerkeenu ka taaganahay ilaalinta xuquuqda xayawaanaadka iyo sidoo kale dhowristooda inaan la dilin qofkii dilana laga qaado tallaabo sharci ah mise dhiigga dadka laftiisa ayaa noqday mid bannaan culumaha laga bartay duurjoogta waxaa ka mid ah in la ogaado intay noolaan karaan intay ku dhali karaan iyo mid kasta inta ordi karo sidoo kalena waxa daraasaduhu intaasi ku darayaan inay faa'iidooyin badan u leeyihiin deegaanka kuwaas oo ka qayb qaata horumarka deegaanku ka sameynayo dhanka bilicda iyo sidoo kale roobka